gabadhaydii xal ayaan ku kadshay sariirta xalku muxuu noqonayaa intaada muuqaalka guda galin walaalkayga muslimka ah waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe saarto islaantan cajuusada ayaa tiri waxaan lahaa 3 wiil oo kulligoodba guursadeen kii u weynaa ayaan soo booqday oo habeen ku soo hoyday subaxii ayaan ka dalbaday xaaskiisa inay ii diyaariso biyo aan ku weysaysto waan weysaystay waanan tukaday biyihii weysada ka soo haray ayaan ku shubay sariirta taasoo aan habeenka ku seexday markay ii imaatay xaaskii ayaan ku idhi gabadhaydii xalay ayaan ku kadshay gogashan xalku muxuu noqonayaa maxaan samaynaa way hajuuntay wayna dhibtay wayna garaacday waxayna igu qasabtay gogasha inaan dhaqo oo qalajiyo caladayda ayaan qarsaday gogashiina waan dhaqay waanan qalajiyay kadib guriga wiilkii dhexe ayaan u hoyday sidii oo kale ayaan ku sameeyay xaaskiisa ayaa carootay wayna qaylisay wayna u sheegtay mana uusan canaano waxna muusa ku dhihin waan ka tagay gurigooda waxaanan tagay guriga wiilkaygii yaraa sidii oo kale ayaan ku sameeyay xaaskiisu subaxii markii shaaha ay ii keentay waxaan u sheegay inaan xal ku kaadshay gogashan waxay igu tiri dhib ma lahan hooyoy imisaan ku kaadshi jirna maryihiina anagoo yaryar kadibna gogashii ayay qaaday wayna dhaqday wayna carfisay waxaan aaday suuqii u dhawaa waxaana ka soo iibiyay dahab kadibna gurigii ayaan ku soo laabtay waxaana u yeeray wiilashayda iyo xaasaskooda dahabkii ayaan soo bixiyay waxaana u sheegay inaan gogasha biyo ku shubayo oo aan ku kaadshin dahabkiina waxaan gacanta ugu shubay xaaska wiilkii yaraa waxaanan idhi tani waa gabadhayda iyada ayaana la joogayaa intaan ka dhimanayo waqtigayga inta ka dhiman agteeda ayaan ku qaadanayaa fahal jazaa'u al-ihsaani illa al-ihsaan wanaaga amaalmarintiisu ma ahan waxaan wanaag ahayn labadii naagoo kale ayaa argagaxeen wayna qoomameeyeen way shallaayeen أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا